halgamaa Sheekh Xasan Sheekh Nuur Sheekh Axmed oo loo yaqaanay Sheekh Xasan Barsane waxa uu dhashay sanadkii 1853 wuxuuna ku dhashay tuulada loo yaqaan Ubaadi oo qiyaastii u jirta 68 kilomitir magaalada Jowhar. barashadiisa quraanka kadib waxa uu cilmi u doontay tuulo la yiraahdo Mareey Abu Xasan oo ku taala degmada Afgooyo iyo magaalada Muqdisho. kadib laba mar ayuu xajiyay 3 sano ayuu Sacuudiga joogay wuxuuna haystay dariiqadida Saalixiyada oo ah qayb kamid ah Ahmadiyada. sanadkii 1923 wuxuu Talyaaniga Soomaaliya u soo magacaabay Governatore Casar Maria da Fica si uu u fidiyo xukunkii Talyaaniga una abuuro qorshaha Talyaaniga oo watay oo ahaa La Granda Soomaaliya inuu wada qabsado dhammaan deegaanada Soomaalida iyo inuu baabiyo kacdoonadii bariga jiray. laakiin waqtiga Soomaalida waxay haysteen hub aad u fara badan. qoraallo badan ayaa waxay sheegeen in hubkii yeelay gobolada Hiiraan iyo Shabeelle Dhexe uu gaarayay 16,000 oo qoray. Sheekha wuxuu aruuriyay dhalinyaro badan qaarkood waxa ay tababar ku soo qaateen dagaalkii koowaad ee adduunka oo isticmaalku qasab ugu qayb galiyay. sanadkii 1924 halgamaa Sheekh Xasan Barsane wuxuu isku yeeray culumadii deegaanka waxaana la isku raacay in laga hor yimaado xukunka Talyaaniga. wuxuuna ka jawaabay warqadda Talyaaniga uu soo qoray ee ahayd inuu hubka wareejiyo isagoo isku dhiibo. wuxuuna u qoray Talyaaniga warqad jawaab ah. warqadda haddii aan wax yar ka soo qaato, warqadda oo dheereed asalkeedna Carabiga lagu soo turjumay wuxuu ku bilaabay magaca Allah. waxaan helay warqaddii, waan fahmay, waxa aan ku sheegayaa inaan qaadanaynin amarkaaga. dowladdaadu waxay leedahay sharciyadeeda, anaguna waxaan raacnaa sharciga Allah iyo rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. manihin sida ummadaha kale aad gumaysatiin iskumana dhiibayno isticmaalka. haddii aad dalkeena timaadaan waa noo dagaal. adduunka waxaan u joognaa dhammaad. waxaan ka haray 58 sano. ma doonayno inaan adduunkan sii joogno. waxaan doorbidaynaa inaan dagaalanno annagoo difaacayna diinteena. waqtigaa waxaa jiray fikir culimada qaar ay qabeen oo ah haddii isticmaalku yimaado inay tahay aakhir zamaan. waxaa dhacay dagaallo xigay oo ay guul ka soo hayeen Sheekh Xasan Barsane iyo ciidamadii la socday. halgamaa Sheekh Xasan Barsane oo ciidankiisu ku hubaysnaa qoryo, seefaf iyo warmo ayaa gaarayay 30,000 oo ciidan, halka Talyaaniguna uu aad u isticmaalayay guutooyinka geela oo ku rarin jiray madaafiicda iyo saadadka kale. goobihii ugu muhiimsanaa ee dagaalada waxaa ka mid ah dagaalkii Buluburte oo dhacay sanadkii 1922, dagaalkii Ceeldheer oo dhacay sanadihii 1922 iyo 1923, dagaalkii Hiloweyne oo dhacay sanadkii 1923, dagaalkii Jilyaale oo dhacay sanadkii 1924. Jilyaalena waa meesha uu halgamaa Sheekh Xasan Barsane ka soo jeedo. dagaalkii Hiryaale oo dhacay sanadkii 1924 iyo goobo kale oo dagaalo culus la iskaga hor yimaaday. Sheekh Xasan Barsane wuxuu ku caan baxay in ciidanka uu ka barada dagaalamo sigoon dhiirigelin jiray. ugu dambeyntii Talyaaniga waxay gacanta ku soo dhigeen Sheekh Xasan Barsane oo dagaalamayay 4 Abriil 1924 sida ku cad buugga Orozento de Impero oo uu qoray Mario da Fico iyo buugga kale ee 3 Years in Somalia. waxaa lagu soo xiray xabsiga dhexe ee Muqdisho kadib markii maxkamaddii isticmaalku Talyaaniga ay ku xukuntay 30 sano oo xabsi ah, laakiin wuxuu ku geeriyooday xabsiga dhexdiisa 3 sano kadib 13 January 1927. qoraalada badankood waxay isku raaceen in uu geeriyooday sun lagu buufiyay qolkiisa awgeed. inkastoo la sheegay in xabsiga dhexdiisa aad loogu jirdilay sheekha laguna xiray qol god ah oo aad u ciriiri ah. Allahu naxariistay halgamaa Sheekh Xasan Barsane waxaa lagu aasay qabuuraha Sheekh Suufi ee ku yaala magaalada Muqdisho. muddo kadib ayaa meedkiisa dib loo qaaday waxaana
dib loogu aasay deegaanka Jilyaale ee Shabeelle Dhexe oo markii hore Shiiqo xarun u ahayd. Dowladdii kacaanka ayaa si loo xasuusto halgamaaga ugu magac dartay dugsiga sare ee Sheekh Xasan Barsane ee ku yaala bartamaha magaalada Muqdisho. بدر